waxaan rabnaa maanta inaan dul istaagno laba qodob. labada qodob waxay kala tahay dadiyowga suuqani forex ku jahwareersan ma istaraatiiji xumo miyaad haysaa mise nidaam xumo ayaa haysaa. boqolkiiba 99 dadka suuqani forex ku jahwareersan istaraatiiji xumo ma haydee ee waxaa haysa nidaam xumo. maanta waxaan rabnaa inaan nidaam yar oo kooban bada bir laba fikras asxaabtooda ay ugu talagalaan inaan idinla wadaagno. sidaa awgeed waxaan rabnaa inaan dhowr qodob weeyaan dhowrkan qodob xooga saar. mar walbo suuqa aad rabtid inaad gashid waxaad raadisaa trade ee balas ilaa trade ee balas ka imaanayana aad sugtid. qodobka xiga waxay tahay inaad akoonkaaga u ogolaatid 1% khasaare maalintii, faa'iidana aad u ogolaatid 2% ilaa iyo 3%. sidoo kale inaad SL ka aad yaqiinsatid oo SL jiro inaad maskaxdaada u sheegtid. sidoo kale haddii trade SL kaaga dhaco ama BA ka saaro inaan trade maalintaasi aadan sii qaadan. soo jadwalkaaga ku jirin in maalintii laba trade aad qaadanaysid. jadwalkaaga uu ku jiro maalintii laba trade qaadanaysid. haddii hal trade SL kaaga dhaco ama BA kaaga dhaco trade kale ayaa fursad ku ban. balse qormadani waxaa ku saleysan in hal trade oo SL kaaga saaro ama briefing kaaga dhaco maalinta suuqa iskaga tag. qodobka xiga waxay tahay inaad jawigaaga maalintaasi inuu yahay mid degan inaad ogaatid. hadduu jawigaaga kacsan yahay mid ama aad xayira xanuunsan tahay ama arrimo family problem oo ku haysto ama meel kale laga haysto maalinta ha trade galan iskaga tag suuqa waxna ha furin xitaa trade view. okay qodobka xiga maxay tahay inaad fudeedka aad iska dhaaf. fudeedka wax walbo qalada ayuu sababaa. haddii trade maanta asigoo rulka ku wada waafaqsan si degdeg aad u gashid trade-kaasi aad ku fududaatid gadaal baad ka shalaanayda. sidoo kale trade-kii soo rulka waafaqay intriga imaaday dhowr bib ka dhaqaaq intriga hadda si raacdaysatid dhibaato kale ay ku tahay. qodob kale maxay tahay haddii aad khilaaftid sharciyadaada haddii shuruucda aad khilaaftid isku day inaad isxukuntid. maxaad isku xukumaysaa inaad soon aad tiraadid 3 maalin baan soomaya 5 maalin baan soomaya lacag baan dhiibaya busha baan sameynaya inta ka dhacaya dabcan noloshaada inaysan mar dambe ku soo laabanin inaad khilaaftid sharciyadaada is xukun. qodobka ugu dambeeya maxay tahay trade hadduu shaki mar un ka gala faraha ka qaad. trade hadduu mar shaki ka galo iskaga tagba haba sii fiirin xal yiri trade xun intaad qaadan lahayd inaad trade la'aan noqotid ayaa wacan. sidoo kale waxaa jirta in talada lagu siiyo waanada lagu siiyo aad qaadatid. si kastoo muuqaalo qurux badan si kastoo buwaag fiican si kastoo cashar wanaagsan aad u qaadatid haddii aanan talada qaadan qof wax ku sheegaa aadan qaadan weligaa lahaaga waxaad noqonaysaa mid dadka un daba joogo meeshii la furana taagnaatid. si marka taa aysan u dhicin mar walba isku day qof wax fahmaya loo sheegana qaadan kara. haddii muuqaalkaaga uu yahay kaliya xitaa 1 minute halkaa daqiiqo ma badan tahay waa may hal daqiiqo muuqaal xitaa isku day inaadan si degdeg ah ugu gudbin muuqaalkaasi nuxurkiisa faa'iidadiisa waqti geli maalmaha ku qaadato. laakiin Soomaaliya waxaan ahayn degdeg waxa ku nagu furan maalinta jirnimo waxaan rabnaa in dhowr muuqaal hal maalin ka baxan taana marka waa dhibaato. weligaa lahaana xeerada la faxshay waa ag fadhinay ogow. laakiin qof isku filan haddaad rabtid inaad noqotid wixii lagu siiyo waanada lagu sii qaado. aad bad maasin timaad baralba fikasman walba joogtaan.